بشارة dadweynow idinkuna bilkhayr dhaha maktabadda almahdi stationary ee magaalada Hargeysa waxa ay bulshada Soomaaliland ugu bushaaraynaysaa in lagu furay carwadii kutubta oo lagu sameeyay qiimo dhimis aad u ballaaran dhammaanba kutubta qaybahooda kala duwan oo dhan muddada ay qiimo dhimistu soconaysaa waa muddo gaaban maasha Allah hore u gaadh oo yaani ku seegin maktabadda المهدي stationary halkani waa maktabadda almahdi stationary waa maktabadii ugu horeysay ee laga furo Somaliland sanadadii 1993 iyadoo waqtigaasi lagu jiray duruufo aad u adag maktabadda almahdi ee bartamaha magaalada Hargeysa maanta waxa la idin wadaa bushaaradii ugu wanaagsaneed ugu qiimaha badneed ugu khayrka badneed bushaaradaasi laga bilaabo 5 bisha aynu ku jirno ee 11aad ee 2023 ilaa 25keeda qiimo dhimis aad u ballaaran oo boqolkiiba 25 ugu sameeyay dhammaan kutubta halka taalo oo dhan ma sha Allah maktabadda almahdi waa halka ugu khayrka badan ee la iskugu baaqo ama la isxasuusiyo dhammaanba kutubta qaybahooda kala duwan oo dhan haddaba maktabadda almahdi stationary iyo carwada kutubtu waxa ay ka socotaa bartamaha magaalada Hargeysa ama ka soo horjeedka istaanka basaska idaacadda u baxa ama dhinaca galbeed ee fooqa Abokor Artan waxay u jeedaa dhanka koonfureed waxaad arki doontaa boorarka ay ku qoran yihiin maktabadda almahdi stationary iyo carwada kutubta wixii faahfaahinaya dheeraadna kala xidhiidh telefoonada iyo ciwaanada ku muuqda